gelinaysaa inaan saaka ay kala soo qayb galno barnaamijkan wadatashiga qaran gaar ahaan civil society-ga ama bulshada rayidka. Civil society-ga muhiimad gaar uu leeyahay sababtoo waxay ka kooban yihiin qaybo badan sida dhalinyarada, haweenka, dadka maaragtay naafada, dadka maaragtay loo baahan yahay inay ka qayb galaan barnaamijyadan. sidaa darteed ayay muhiimad gaar u leedahay. Lagu hadlayay 4 qodobood oo kala duwan markii aan isku dayay inaan dhex qaado dadweynaha ka soo qayb galay shirkan ayaan fikirkooda mid u weydiinay sida ay u arkaan doorashada ama ay noqon karto. Walan tawfiiq Allah waafajiyo marka xigta madasha wadatashiga qodobada ay soo bandhigtay ee habraaca ah loogu talagalay higsiga 16-ka wax badan ayaan leeyahay in wax laga bedelo ay mudan tahay. maxaa yeelay haddii degmooyinka la yiraahdo degmo maanta gacanta dawladda ku jirta amba dadka iskale gacantooda ku jirta oo madax bannaan oo wax laga soo xili karo ma jirto. haddii la yiraahdo maamul goboleedyada soo xulayana waxay noqonaysaa iyadoo gacanta loo geliyay dadkii shalay awoodda dawladnimo gacanta ku haystay iyadoo gacanta loo geliyay ayay noqonaysaa haddii maamul goboleedyada soo xulaya la yiraahdo. maxaa yeelay dawladda hadda imaan doonto waxaan aad uga hamo weynahay in ay noqoto dawlad ummadda u siman. haddii maamul goboleedyada soo dhisay la yiraahdo qabaa'ilo badan oo hadda maamul goboleedyada aan xuquuqdooda ka helin baa jira, sidee berito ay ku heli karaan dadkaas xuquuqdooda haddii maamul goboleedyada ay wax soo sameynayaan ama ay iyada ergada soo dooranayso. marka degmooyinkana hadda laguma soo xuli karo, maamul goboleedyadana wax sooma xuli karaan. waxaan isleeyahay waxa lagu soo xuli karaa 5 beelood oo siman oo qabaa'ilada lagu saleynayo in wax lagu soo xilo. saasa aniga aragti ahaan leeyahay habkana sidaas loo raaco.